بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد هاي دكتور أحمد رشيد شيخ مؤمن إسحاق كنا حول قلا حرون عافيمادك جعل بولي كلينيك سنتر ما أنت أي تاريخ تهاي تضبي طبعاً بشمي أو معلنت اللو أستي معلنت دي كركة عالمي جامعة أدونك World Hypertension Day وحافك قلاد الويرة ما دام أي تهاي معلنت ما أنت معلن لو أستي معلنت كورقبك وعي جلنت كورتجا dhiirigelinta daaweynta xanuunka dhiigkarka ay tahay waxaan bulshadeena qiimaha badan leh iyo macaamiisheena sharafta leh aan ku wargelinayna in xanuunka dhiigkarka oo ah xanuun kamid ah xanuunada chroniga ama qofka uu la nool yahay in muddo qofka bini'aadamka ama uu la nool yahay xanuunada kamidka ah xanuunka oo ah runtii xanuun ah ziyaadada cadaadiska dhiigga macnaha luqadda Soomaaliga dhiigkarku waa xanuun boqolkiiba 95 sababkeena aan la garanaynin hase yeeshee boqolkiiba 5 kale sababo muayana keena xanuuno qofka ay sida dadka kaliya ay xanuunayaan sida dadka xanuunada xididada dhiigga ku dhaca qaba sida dadka dawooyin dhiigkarka naftirkooda keeni kara isticmaalay oo si khaldan dawooyin u isticmaalay dhiigkarka runtii waa xanuun la daweey karo oo la tacaali kara dawooyin leh inta aan dawada sal la qaadan waxa ka horeyso qofka bini'aadamka inuu noloshiisa manaj gareeyo oo ku manaj gareeyo waxyaalaha aan ahayn dawooyinka sida mesela cusbadii milixdii inuu joojiyo exercise badan inuu sameeyo stress ama buuq badan qofka haduu ku furan yahay inuu isdijiyo shaydaanka iska naaro hadii qofkii qof cayilan ama buuran oo yahay inuu weight-ka ama culayska qofkii bini'aadamka uu iska dhimo waxyaalaha asaasiga ah qofka in dhiigkarka oo ka hortaga ama hadii uu qabo qofka bini'aadamka uu noqon karo caafimaad qab ama daweynta dhiigkarka uu noqon karo run ahaantii xanuunkan dhiigkarka wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan oo qofka bini'aadamka ee qabo oo ku soo kordhi kara jirkiisa sida qofkii in stroke uu ku yimaado ama lug ay gacan ay dhacaan in qofkii keliyihii ay fashilmaan keliyihii ay shaqay waayaan in xididadii dhiigga xanuun kale ama dhibaato kale uu sii gaaro in qofka wadnihii uu ku dhufto oo maxaan ku yiraahdaa wax loo yaqaan myocardial infarction ama xanuunada ku dhaca wadnaha oo kale oo keena dhiigkarkii waxyaalahaas iyo waxyaalo kale oo badan oo had soo koobi karin ayuu u keenaa qofka qaba dhiigkarka complication ah wax loo yiraahdo ama waxyaalaha kale ku iman karaan dhiig karno fa bulshadeena qiimaha badan ee sharafta leh waxaan ku dhiirigelinaynaa qof kasta oo dhiigkar qaba ama isaga shakisan inuu tago xarunta caafimaadka ee u dhow si uu helo talo bixin caafimaad si uu helo tusaaleyn iyo waxyaalihii uu ka yeeli lahay xanuunkan ama qofkii ka shakaysan sidii ugu hortagi lahay in looga sheekeeyo aad ay waxay ugu muhiim tahay bulshadeena Soomaaliyeed ee qiimaha badan leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.